mudane gudoomiye waxaad ku soo dhawaataa inaad la hadashid bulshadaada oo mahadsanta. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدومي كحجين ككوات أغل كسره مدن مدحوين سعيد عبد الله الدني مدحوينها بونتلاند مدن أحمد علمي عثمان كراش مدحوين كحجين كبونتلاند مدن عبد الحكيم محمد أحمد قدوميها أقل كوكيلة بونتلاند مدحويني هوري بونتلاند سنتر عبد الرحمن محمد محمود فرولة حلبانا دا قلاها شعبك إيو أقل كسر برلمان كجمهورية فدرالك الصومالية xildhibaanada iyo wasiirada Puntland isimada iyo shacabka guud ahaan Puntland dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. intaan hadal jeedinteyda u gudbin waxaan u tacsiyeynaynaa gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana meeyarkii magaalada Muqdisho ama duqa magaalada Muqdisho wada waxa ku geeriyooday Ilaahay naxariistii jannaha ka hageliyo ummadda Soomaaliyeed nooga tacsiyeynayna eheladii qaraabadii uu ka geeriyoodayna jannada ay ka geeriyoodayna Ilaahay samir ha siiyo. mudanayaal imarweyn anigoo ku hadlaya magaca golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan maanta ku faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo xuska sanad guurada 21aad ee ka soo wareegtay asaaskii Puntland. mudane madaxweyne inta aanan hadal jeedinteyda gudaha u galin waxaan mahad gaara u jeedinayaa asaasiyaashii dhidibada u aasay dowladda Puntland maanta aynu u joogno dabaaldegeeda 21aad ayadoo aan ka xusi karno Allah u naxariistee madaxweynihii koowaad ee dowladda Puntland isla markaana soo noqday madaxweynihii lixaad ee dowladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya marxuum Cabdullaahi Yuusuf Axmed. dabaaldegii shalay ee quruxda badnaa ee ayabi dowladda Puntland ka samaysay barxadda magaalada Garowe oo isugu jiray horumaradii dhinacyada kala duwan lahaa ee shacabka iyo dowladda Puntland ay sameeyeen muddadii ay Puntland asaasantay oo hadda laga joogo muddo 21 sano ah waxay noo muujinaysaa isku duubnida iskaashiga ku dhisan ee ay sameynayaan shacabka iyo dowladda Puntland. sidoo kale fantasiyihii shalay waxa uu cadeynayaa in deegaanada Puntland ay joogaan shacab
iyo nidaam maamul oo iswada raacsan iskuna tala ah. waxaan rajaynaynaa sidoo kale in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka intoodii kale ay ku dayan doonaan reer Puntland oo xaqiiqdii ah tusaale aad u wanaagsan oo ku dayasho mudan. mudane madaxweyne iyo mudanayaasha sharafta leh, waxaa inoo hor yaalla caqabado iyo rajooyin isku mid ah oo ay tahay inaan si wadajir ah u wajahno. haddaba si aan ugu gudubno caqabadaha inoo hor yaalla islamarkaana aan uga wada faa'iidaysano fursadaha muhiimka ah ee maanta aan haysano, waa in dhammaanteen ogolaanaa inaan u wada hoggaansanno dastuurka kumeel gaarka oo tilmaamaya in waddanka uu yahay jamhuuriyad federaal ah oo leh gobonnimo dimuqraadi ah isla markaana ku dhisan matalaadda dadweynaha. waxaa muhiim ah in dhammaanteena ku dhisno aragtideena mustaqbalka, dhammaystirka federaaleynta dalka iyo xoojinta xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladaha xubninta ka ah. sidoo kale waxaa habboon in dowladda federaalka waxaa hubaal ah in dowladda federaalka aysan shaqayn karin keligeeda, maadaama dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka ay yihiin kuwa adeega gaarsiiya shacabka ku nool deegaanadooda. adeegyadaasi oo ay ka mid yihiin caafimaadka, waxbarashada iyo wixii kaloo la mid ah. sidoo kale dowlad goboleedyada aysan keligood shaqayn karin maadaama ay hoos tagaan dowladda federaalka Soomaaliya sida uu qabo dastuurka kumeel gaarka ee dalka. arrimaha doorashooyinka soo socday 2021 sida aad la socotaan, guddoonka golaha shacabka wuxuu 20 Juulaay ee Luulyo 2019 magacaabay guddi kumeel gaara oo ka kooban 15 xubnood oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka si ay u soo diyaariyaan sharciga doorashooyinka qaranka, maadaama goluhu mas-uuliyad ay ka saaran tahay diyaarinta sharciga doorashooyinka sida uu xeerinayo qodobka 47 ee dastuurka kumeel gaarka ah. iyadoo loo madalsan yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho xur ah sanadka 2021 guddigaasi shaqooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu wada tashiyo la sameeyo cid walba oo ay quseeyaan arrimaha doorashooyinka. waxaan rajaynaynaa in talo ay idinku imaan doonaan, idinkuna mas-uuliyadii idinka saaran tahay go-aanka gaaridda arrimaha doorashooyinka si loo horgeeyo golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. gabagabadii, Puntland waxaan u rajaynaynaa guul. waxaan shacabka Puntland u rajaynaynaa barwaaqo iyo horumar midkan kasii ballaaran, kasii wanaagsan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. madaxda waa fasaxaynaa, laakiin marka hore blue lightkii baan ridayaa loogu talagalay hambalyada sanad guurada 21aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay Puntland. kooxda fanaaniinta heestii blue light waan rabnaa inay daaraan halkan. wax yar baan siinaynaa 1 minute. kooxda farsamada inay ridaan baan rabnaa inta madaxdu taagan tahay. heesta blue light u rida iyo masaa istaagayna. kooxa kamarmaanadana bannaanka aadaan si u duubaan, annagana halkaan ka arkayna. away heesta blue layer u rida ku sagootiya.
markaan budrigne buntland dhisaniyo bishii agosta bishaan kalate markaan budrigne buntland dhisaniyo bishii agosta bishaan kalate soo bandhigtee magay shacabkii u baahi jirtee magay shacabkii u baahi jirtee